shirkani oo maalmihii u dambeeyay ka socday magaalada Burco ayaa mid taageero loogu muujinayay shir dhawaan ka dhacay magaalada London oo loogu magac daray Midnimo 1 kaas oo lagu horumarinayay deegaanada gobolada bariga Soomaaliland. Shirkani oo ka qabsamay Hotel Cafe ee magaalada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay cuqaal, salaadiin, aqoon-yahan iyo dhalinyaro tiro badan kuwaas oo ka soo kala jeeda beelaha deegaanka bariga iyo galbeedka magaalada Burco. Waxaana qodobadii ka soo baxay halkaasi ka akhriyay Cabdi Salaad Faarax oo ka warbixiyay qodobada la isku afgartay. waxaanu yiri waxa uu daba socdaa kuna xiriirsan yahay shirkii Midnimo 1 ee ka dhacay magaalada London ee dalka Ingiriiska. ay ku ilaatankii bishii shanaad 2017 ee beelaha habar yoonis iyo habar jeclo aanu hambaliyo soo koobi karin u diraya qabanqaabayaashii shirkii Midnimo 1. qodobka labaad shirka Midnimo 2 waxa uu ka shaqeynayaa danaha labada beelood ee walaalaha ah habar jeclo iyo habar yoonis. aanu ka madax bannaan yahay dhammaan siyaasadda noocay doonto ha noqotee waxaana ka shir aan u xaglinayn mid ka mid ah xisbiyada iyo siyaasad kala toona. qodobka saddexaad shirku wuxuu diiradda saarayaa horumarinta deegaanka ballaadhan ee ay wada degaan labadan beelood. lambarka afraad shirku wuxuu ku baaqayaa in la caawiyo dadkii ku caydhoobay abaartii waddanka ka dhacday. shirka Midnimo 2 wuxuu gundhig u ah inay muqaddis tahay lama taabtaana tahay midnimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland. wuxuu ku baaqayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland inay si gaar ah u caawiyaan dadka gobolada bariga Soomaaliland oo dhibaatadii abaartu 80% iyaga ay soo gaadhay. ka Midnimo 2 wuxuu ka soo horjeedaa wax kasta oo kala fogeynaya beelaha Soomaaliland. xisbiyada qarankana wuxuu ugu baaqayaa inay la yimaadaan bisayl siyaasadeed oo ku dhisan barnaamij waxqabad. muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay biro xisbiga uu ku qanco barnaamijkiisa siyaasadeed. waxa uu hambaliyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliland meel ay joogtaba sanad guuradii ka soo wareegtay u diraya madaxweynaha dowlad goboleedka deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar sidii mugga iyo miisaanka lahayd ee uga qayb qaatay abaartii waddanka ka dhacday. sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay madax dhaqameed kala duwan kuwaas oo si weyn u bogaadiyay shirkaasi ka dhacay magaalada London ee dalka Ingiriiska. maanta halkan wada fadhiya ma aha wax maanta halkan waxa ka dhaxeeya laga sheekeyn karo ilaa maanta haddii qofku taagnaado ay u dhigay waa labada beelood oo qura ee lixda gobol ee Soomaaliland tahay. Soomaaliland waa lix gobol oo gobolada waaweyn ilaa lix gobol weeye dalku. lixdan gobol afar gobol oo waaweyn oo kamid ah labada beelood waa labada beelood oo qura ee reer Soomaaliland ee afar gobol wada degan. istaagii Soomaaliland 26 guuradii ka soo wareegtay jiritaanka Soomaaliland. waxaan leedahay labada beelood ee walaalaha ah ee isku midka ah ee dhiig iyo dhaqanba ka dhaxeeyo horay ugu ekeysada tani inay dantooda gartaan oo degaankooda iyo inta ay yaaliin isku mid noqdaan horay ugu ekay ka bilaabmay ee maanta wajigiisii labaadna Burco ka bilaabmay xalaga eego baan leeyahay dhinaca wanaagsan qoratiga beelaha isaaqna weeye marka la isku daro waxaan oran karaa 80% waa labadan beelood bay ka dhisay haddaanay taladooda iyo cududooda midaynina dalkan aslam may xoreyseen iyaga ciidanka ahaa iyaga saraakiilka ahaa iyaga siyaasiyiinka ahaa halganku labada beelood ka tisqaaday imikana waxa leeyahay labada ay halka kaga dhawaaqeen shirkii Midnimo 1 oo ay labada beelood ku midoobayaan dhammaan waxyaalaha dib u dhaca ku keenay una midoobayaan horumarka. Cabdiraxmaan Roble Cabdilaahi Cabdiraxmaan Trike telefishinka caalamiga Kalsan TV magaalada Burco.